السلام عليكم لما أصحابته وتسلامنتين ملك استاد دنيا كجوكتان كسو دوادا channel كحيرتي وعاشركي صدح تمناد وتحنا وكسابسن برنامج كسوني فاسبور 16 شراء سوسي فيرا ugu baxay channel kayga waxa idin soo jeedin doonaa aniga Xaydar maanta cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay qaabka aad u soo saari lahayd muuqaal haddaynu cashirkeena guda galno hore waxaynu u soo qaadanay waxyaalo badan oo ay ka mid ahaayeen qaabka aad ugu soo dari lahayd muuqaalkaaga qoraal qaabka aad u sixi lahayd kalarka muuqaalkaaga qaabka aad u wanaajin lahayd codkaaga iyo waxyaalo kale oo badan markaad intaas oo dhan soo samaysid waxaad u baahan tahay inaad soo saartid muuqaalkii si aad u isticmaasho marka maanta waxaynu qaadan doonaa qaabka aad u soo saari lahayd muuqaalkaaga adoo isticmaalaya barnaamijka Sony Pro 16 markaad soo geliso muuqaalkaaga barnaamijka Sony Pro 16 waxaad gelin doontaa timelineka kadibna waxaad dhihi doontaa right click adigoo tagaya property markaad tagto waxaad dhihi doontaa disable sample ayaa leedahay okay ayaa leedahay markaad intaas samayso waxaad tagi doontaa project property markaad halka ku dhufato halka waxaynu ka sixi doonaa wax kasta aad u baahan tahay muuqaalkaagu inuu noqdo ama qaabka uu muuqaalkaagu noqon doono muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay inaan ku render gareynaynaa ama inuu muuqaalkeenu ku soo saari doonaa 720 frames per second marka waxaanu ka bilaabi doonaa halka width ay ku qoran tahay 1287 aynu deynaa fill orderkana oo dhan aynu ka dhigaynaa pixel aspect ratio-na hal aynu uga tagaynaa output rotation-kana sida aynu ugu deynaynaa frame rate-kana waxaanu ka dhigaynaa 30 frames waxaanu rabnaa 29 u dhow meesha ugu dhow ayaynu ka dhigaynaa ama waad ku qori kartaa 30 ayaynu ka dhigaynaa kan off ayaa u deynaysaa pixel format-kana 8-bit ayaa ka dhigaysaa hoos baynu u degaynaa rendering quality-ga best ayaa ka dhigaysaa haddaan ku ahayn best ayaa ka dhigaysaa halkana Gaussian blur ayaa uga tagaysaa halkana blend fill ayaa uga tagaysaa sample mode-kana waxaa ka dhigaysaa disable sample inta markaad samayso waxaad gudbin doontaa audio kadibna waxaad sixi doontaa codka master bus mode-ku haddaan ku ahayn studio ayaad ka dhigaysaa numbers of studio bus-kana 0 ayaad u deynaysaa sample rate-kana waxaad u deynaysaa 48,000 haddaan ku ahayn 48,000 ayaad u deynaysaa bit depth-gana waxaad u deynaysaa 16 halkana haddaan best ku ahayn waxaad ka dhigan doontaa best waxaad ku soo laaban doontaa video marka inta dhamayso template-kana aynu waxaanu u bixin doonaa magac si aynu u save gareysano oo mustaqbalka u isticmaalno waxaan dhahaynaa 720 30 frames per second frame per second test aynu bixinaynaa kadibna waxaan leenahay halkaas aynu ku dhufanaynaa save template ayaan leenahay kadib inta markaanu sameeyno waxaanu sameyn doonaa apply okay marka inta dhameysid waxaad double click ku dhufan doontaa halka kan si ay kugu sameysmo loopka waxaa ka wada inta labada calaamadood oo ruuda u dhaxaysa bes ayaa la render gareynayaa laakiin haddaan loopku ku sameysmayn oo iska sii soconaysa marka inta sameyso ayaa waxa leedahay file render as kadibna waxaad dooran doontaa magic avc AAC mp4 waxaan tagi doonaa ama dooran doonaa kaynu rabno template-ka aynu rabno ayaan dooran doonaa dhinaca kana waxa kaga soo bixi doona template-yada ku jira halka kan marka waxaan dooran doonaa internet HD 720 pixels 25 frames per second taas ayaanu ku dhow kadibna waxaan leenahay customize template marka intaad samayso waxaad dhihi doontaa ama sixi doontaa template-kaaga halkan waxaan ka dhigaynaa 30 profile-kana waxaanu ka dhigi doonaa high marka intaad samayso hoos ayay usoo degi doontaa halkan waa sixi doontaa use deblocking filter wuxuu ka ilaalin doonaa inay pixelskaaga soo laabtaan kanna waxaa lahaa bitrate ayaa lahaa bitrate-ku wuxuu ku sheegayaa tusaale ahaan laba qab ayaa loo isticmaalaa bitrate-ka mid constant iyo mid variable kan constant-ga ah tusaale ahaan 768,000 inaad isticmaasho iyo inaad laba lambar kale isticmaasho bitrate-ku wuxuu ku sheegayaa tusaale ahaan haddii uu ku jiro muuqaalkaaga speed ama motion blur badan wuxuu isticmaali doonaa kan maximum-ka markaad variable ka isticmaalaysid haddii kale labada inta u dhaxaysa ayuu isticmaali doonaa hadba isaga ayaa dooranaya inta uu rabo laakiin si hadda constant ka dhigtid inta ma dhaafiyo marka saas ayaa uga tagaysaa kana marka saas samayso waxa u gudbaysaa project-ga halkan ayaa waxa ka dhigaysaa video rendering-ka waxa ka dhigaysaa best kadibna okay ayaa leedahay marka intaad samayso browse ayaa leedahay waxaad dooran doontaa meesha lagu geynayo muuqaalkaaga magacana waa ka bedelinaysaa
test ayaa ka dhigaysa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaa noo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah. Ramadaan kariim.